يا مدحوينها خاتم ستيت اوف صوماليا محمود يوسف جامع وحن لنا هاي السلام ايام كوسو بن marka labaad jaaliyada خاتم ستيت اوف صوماليا ee Saudi Arabia magaalada Jidda waxay nasiib u yeeshay inay noqoto kuwii ugu horeeyay ee qabta u dabaaldega sanad guurada labaad Khartoum State of Somalia iyadoo maalinta Khamiista oo ay taariikhdu ku beegan tahay 16 bisha koowaad maalinta Khamiista ay ka dhici doonto caalamka 62 state oo adduunka kamid ah ay ka dhici doonto u dabaaldega midnimada iyo soo dhaweynta Khartoum State sanad guuradeeda waxaanu halkan uga hambaleynayaa oo kale dumarka iyo dadkii soo abaabulay sida fiican u soo abaabulay xafladan quruxda badan waxaanu leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Opisi waan laga bilaabay in baraka male bese waan laga bilaabay in baraka male birwayaan oo islaanko badbaadiya oo waa u baranaaye allo baaska dhaga xijaab Somalidu ka gees waa iska howricin Somalidu gees waa iska howricin dagaalkii ma joogsan harbeegena waa jira kantaalada ka ugu culus waa iyaga isku reeday kantaalada ka ugu culus waa iyaga isku reeday gaba colaadeedii weerar loo guntaado maydaan la xabaalin baa xaafada dhaxyaal gargaarka degdegan isbitaalka geeran yahay ilaahow guula Soomaali silic ka gaar ilaahow guula Soomaali silic ka gaar habarta iyo odayga iyo xaaska aynu nahay habarta iyo caruurta iyo xaaska aynu nahay habarta iyo caruurta kuwa meydka lagu horwaado gargaarka degdegan isbitaalka geeran yahay gargaarka degdegan isbitaalka geeran yahay warawaashaadkii maynagaan islaanay waka ololaya qaalkoo ilaalaa oo xawaleeyay sidee baan ku xallin karnaa oo xawaleeyay sidee baan ku xallin karnaa ilaahow guulaada boqorno ah maseebada joogta daayinka anaga reeba oo daayinkan ku barye meel qabo kuwa abti walaalo waxaan adigana ku iri oo guulaan ku barye meel qabo kuwar oo guulaan ku barye darajo weyn laaw xilbaad qaatay adiguna oo mas'uula ogugu markuu oro beertuna gabaxtida gogo markuu oro beertu gabaxtida nimanka arigooda gaadhoodkooda lagu horwaado waxaa cabdi oo ku dhalahay reeranka jaarag waxaa cabdi oo ku dhalahay reeranka jaarag waa cabdigaas sheekada barnaamijkan wado يا خاتم ولي قد نولاتو خاتم ولي قد نولاتو عدو قيدنا هاتشابو
xaasidkuna ha dhaco ilaahay waxaan ka barnay tii guulaysatay ee gabowday ee lagu qabowsaday ee lagu raagay allaha ka dhigo intii mas-uulkaana mas-uul dheeraaday allaha ka dhigo kuwii beledka hantiya ee soomaaliya oo dhan isu keeno hantiya allaha ka dhigo cadowga iyo xaasidkana allah inaga qabto ilaahay waxaan ka barnay guul iyo darajo iyo nidaam iyo wanaag allaha siiyo madaxdeena dawladaha noo noqotay allaha noo raajiyo allaha noo raajiyo cabdiwali allaha raajiyo ka kale allaha raajiyo sumay khayr allaha hagaajiyo dawladdeena kor allaha ka dhigo cadowguna ha jabo waaweenka soomaaliyeed hadalladoodii hurdayow ka toos waa dagaalantan dabadeed halgan iyo dagaal agar labaan eegankowna inan calanka kor u qaada baan ku amiyeeyaay dhinacii khudbada ayaan u leexanaynaa waxaan u yeeraynaa Firdawso Xasan Wagad oo ka mid ah jaaliyadda beesha Khaatumo ee ku dhaqan magaalada Jidda. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. halkan waxaan ka salaamayaa jaaliyadaha isugu yimiday ee sharafta leh iyo marti sharafta leh noo timiday xafladan Khaatumo waan soo dhaweynaynaa ahla wa sahlan baan leenahay albayt baytukum kulligood halkan waxaan ka salaamayaa Soomaali oo dhan meesha ku nooshay adduunka caalamka Allah waxaan kaloo inii sheegayaa halkan madaxweynaha Khaatumo State of Somalia in the shell ayaan ka salaamayaa sanad guurihii labaad ee Khaatumo ha noolaato Khaatumo ha israacdo Khaatumo cadowgeeda ha jabo halkan waxaan ka salaamayaa presidentka Prime Ministerka Soomaaliya Cabdiwali oo halka taageero iyo duco aan uga sidno iyo madaxweynaha jadiidka ee Puntland Cabdiwali isnaadka hambaliyo waxaan sheegayaa Khaatumo reer Khaatumo waxaan u sheegayaa raggooda dumarka ma aha ragga waxaan u sheegayaa Khaatumo inay waxay sameynayaan joojiyaan oo say dadku isku wada garab siiyaan ee dhuudhuuban ama midba luuq galin oo waxay sameynayaan nin walba muraadkiisa iyo waajibkiisa wuu cadaystaa inay muraadkooda ay muujiyaan iyo waxay halgamayaan ay doonayaan inay mid ka ahaadaan ayaan jecelahay maxay isla qarinayaan qabiil kasta iyo wadan kasta nin walba meeshiisu doonayo garab taagayay muujinaya kamarada laga eegaya wuu hadlayaa nin kasta rayigiisu dhibanay maxay isla qabaynayaan nimanka asaabaha nimanka Khaatumo ee isqarinaya nin walba mabda bulay mabdiisa ha cadaystaan kuwa Jidda joogaaba ugu daranba ali khabayay wada noqdeen marka anigu waan salaamaya kulligiin waa mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Zainab Mukhtar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I want to talk about Somalian. Yes, I am Somalian. I am proud. I'm so proud of Somalian. So I hope so much for Somalian to be a good place, for Khaatumo especially. So I hope also I hope for them to be a great. Thanks. Okay. I hope for them to be a great. I hope for them to be the best place in the world. I'm here talking behind my family, behind my friend for me. So Khaatumo noolaato. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وحنا السلام يا Khaatumo سودانتهاي يعني Soomaaliya kadib anagu dhalinyarta Khaatumo haday kuwa ku dhashay dabadda amba kuwa ku dhashay Saudi Arabia kulligood way taageerayaan Khaatumona way dhaqaaqday ilaahay guul dawgeena ha jabiyo aamin اللهم صل على سيدنا مولانا محمد halkan waxaan ka salaamayaa dadweynaha sharafta leh ee goobtan isugu yimid xafladan sharafta leh isugu yimid
annaga oo taageerayna maxay ahayday xafladan qiimaha iyo qaayaha badan ee Khaatuma State annaga oo taageersan aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca dawlad deegaanka Soomaalida kilalka shanaad aad tixiro buraanbura ayaan halkan ka tirinayaa ururka Khaatuma State oo arlada ku raag ururka Khaatuma State oo arlada ku raag adduunka ku waaro arligaagu nabad ahaa ifka intaad joogta arrinkaagu ku agaag cadow wixii ku arabiyow cidhiidhi geeli curyan yururiya rabbi camiyaha ka dhigo gabdhaha Khaatuma State khayrka badan lahow gabdhaha Khaatuma State khayrka badan lahow wanaag taaliyooyin wadankooda u halgamow wanaag taaliyooyin wadankooda u halgamow ilaahay ha idin gargaare ha gaabinina dad yaw isku duubniba dawlad lagu noqdaa dad yaw isku duubniba dawlad lagu noqdaa dad yaw isku duubniba daacad lagu helaa daayinkoo laga baqa lagu degaa jannaada ilaahay ha idin gargaare wayne daarood Ismaaciil meel kasta baa joogaan madaxweynaashooda ayaan taageerayaa halkan waxaan ka salaamayaa يعني سيدابا ولا يعني أديكو ما أنت مقعسنا لبحي يعني ما أنت دلتين لجوب الشارعي يعني ولا لها حريرها جاي تاجيين سيدابا ضم اللون تمام اللون يسد ولا لون هرن وقص الصعونيسا أنا قرب كاج أيام تاجن هاي قرب كاج أيام تاجن وحنش كوش يا ولا لا دول بهنتي هدو يهاي كل جيم هاي هدو ضيح يهاي هدو قرح يهاي هدو قمر يهاي هدا مدنا عسينو قمشرو لكن وحواي فريق دول بهانته waxaad isku jiiraysaa fariidnimada isku jiiraysaa qaar idin kamid ah nacas iska dhigo sida maartay sumaqashaan oo ku kala dambeysaan yaani waxa way walaalo waxa lagu guuleystaa yaani madaxa loo saaro dal aadan lahayn ku dul waxaan idin sheegayaa Khaatuma daris wanaag walaalihiina dariska aatihiin iyo nabadgelyo maaha xabad in wax lagu doono ayaan idin kula dardaarmayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shukri gaambi way mahadsantahay haatan waxaan u yeeraynaa Zainab Aadan Qaliif oo kamid ah hooyooyinka Khaatuma State ee magaalada Jidda assalaamu calaykum martida sharafta leh meesha iskugu timid inay taageerada ay u fidiyaan Khaatuma State of Somalia wayna salaamaya walaalayaal bacdi salaan anu waxaan ahay Jubaland State لكن وحن تاجروا هاي Khaatuma State of Somalia وحن لا يا هاي سنة جورة وأنا أكسب عن نير رجعينا قبلها يا ويلش كل قد ماشي سكوي ده قابياش كوديجين وحن لنا هاي سنة جورة وأنا أكسب ألا مدة أمريكا عن كسوهارو أن همبليادا كسوهارو waxaan idin sheegayaa reer Khaatumo saddex arrimood ayaan idin sheegayaa mid weeyaan waxay ku socotaa dawladda Soomaaliya midna waxay ku socotaa ergeyga khaaska ah ee qaramada midoobay midna waxay ku socotaa reer Khaatumo ما شاء الله reer Khaatumo waxaan leeyahay sidaad ku socotaan si fiican ma bisaad ragga reer Khaatuma mid ugu fiican inii fiican waxa weeyaan inaad idinku dhaxdiina midowdaan inaad maxaan ku raadayay maadaama la inii ogol yahay laba gobol iyo wixii ka badan aad goboladiina dhisataa sida Jubaland iyo Puntland oo kale
haddaydan sidaa yeelin waxaa darisinana niman walaalihiina wax la qaybsada midda saddexaadna waxaan la hadlayaa ergeyga qaramada midoobay maalin walba waxaa tagtaa gobol ka mid a gobollada Soomaaliya gobolka Khaatuma waxaad uga laalaabanayso waxaan u malaynayaa waa gobolladii awoowaha lagu waxyeeleeyay calashaan sidaas ayaad uga leexleexanaysaa baan u malaynayaa waxaan la hadlayaa madaxweynaha Soomaaliya waxaan oranayaa madaxweyne taariikhda dib u eeg taleex iyo dadka meesha degan waa midnimadii Soomaaliya waa hooyadii xornimada Soomaaliya marka waxaan ku oran lahaa hadduu dagaal ka dhaco kama hadashid hadday wax ka dhacaanna kama hadashid laakiin bal buugta dib u akhri oo bal taleex iyo waxay tahay ogow marka walaalayaal waxaan idin rajaynayaa sanad guuro wanaagsan anigoo ku hadlaya codka gabdhaha Jubbaland maxaan ku iraahdaa anagoo ina taageersan laakiin waxaan idin rajaynaynaa reer Khaatumo inaad midowdaan haddayna midoobayna labada maamul ee dhinacyada midkiin roon raaca halkaas weeyaan